waan gartay wasiir waad mahadsantahay waxaad soo hadal qaaday dhanka Soomaaliya idinka Puntland ahaan Soomaaliya maxaad ugu talagasheen maxaad qorshahay ugu talagasheen dadka Soomaalida Puntland waxa jira dad badan oo ku soo qaxa gobolada koonfurta dagaalada ka socdaan ka soo qaxa Soomaali badan oo hadda Puntland soo degtay baa jira iyo ku hore deganaa maxaad Soomaali weyn ugu talagasheen dadka Soomaalida oo internal displaced people la yiraahdo dadkaas hadda waxaanu ilaa 300 oo kun ayaanu haynaa waxa kale oo jira dad kastoo Soomaali qof kastoo Soomaali meel kastoo ka yimaado oo Soomaaliga native ka ah yaani dalkoodii weeye cid ka horjoogtaana ma jiro waana dalkoodii waxbay ka ganacsan karaan waa iman karaan amaan bay ku helayaan waa ka shaqeyn karaan yaani wax dhibaato ah oo loo geysanayo ma jiraan waxa way Soomaali weyntina markasta isugu yeereynaa haddii ay dhacdo in udugu shirar mar dibadda lagu wada qabqan jirayna Puntland waxay diyaar ay u tahay markasta inay gogasho u fidiso Soomaali weyn iyadoo aan higsanayn oo aan lahayn inagu madaxdaasna u tafaaciidan laakiin markasta in Soomaalidii magaceedii iyo sharafteedii iyo meedii ay soo noqoto waayo aad baan uga xunaay magaceena yaani xoogaa dhaawac uu gaaray shacabkaas oo shacab aad u fiican ah oo aad iyo adduunka loo baahan yahay adduunka inuusan ka firgo'in oo shacab exceptional aad u fiican waa gartay wasiir waad mahadsantahay waxa tahay nin qurbo jooga siyaasi rugcadaan ah muddo siyaasadda ku soo dhex jiray markaad fiirisid Soomaalida inta kale intaan Puntland ahayn ama haday rabaan ha aadan kuwa qurbo joogta ah soo aragtaa gabi ahaanba dadka Soomaalida ah horta dadka Soomaalida ah waa dad fiican oo sanad u sheegayay waxa weeye waa dad luqadoodu fiican tahay oo muuqaalkoodu fiican yahay oo codkoodu fiican yahay oo dhaqankoodii say u fikiraan fiican tahay oo EQ-goodu adduunka waxa way dadka ugu sareeyo weeye xoogaa waxa ka haysta emotional intelligence wada xoogaa yaani marka laga adeegsadaa adigu cudurka ku dhacay oo qabaa'ilka oo wax laga tagayo adduunka mar hore laga tagaya marka shacabkaasu waa shacab loo baahan yahay adduunka inuusan ka firgo'in waana istaahilaad sida bini'aadamku u nool yahay inuu u noolaado sida aad ogtihiin dibadaha marka tagtaan luqad kasto la baranayo hadday Chinese tahay iyo hadday Ingiriis tahay iyo hadday Ruush tahay iyo hadday Carabi tahay yaani luqad kasta way karaan cayn bay karayaan qaaf bay karayaan khaab bay karayaan waxa way standard aad u qurxoon oo shacab adduunka inuusan ka firgo'in loo baahan yahay oo la waardiyeeyo waliba adduunka dhexil ka saaraya inuu waardiyeeyo shacabka wanaagsan waa mahadsantahay wasiir maadaama aad tahay wasiirka cadaaladda iyo diinta iyo waliba dhaqan celinta soo aragtaa dadka Soomaalida dhaqankooda Soomaalidu waxay tagtay dalal badan oo qurbaha ah ayadoo Soomaalida lagu xanto la yiraahdo hadba dalkay tagaan bay dhaqankooda qaataan soo aragtaa dhaqan ahaan dadka Soomaalida horta arrin wax ka jiraan oo shacabka Soomaaliga ah waxa weeye waa shacab yaani haddii yiraahdo milanka ku milmi kara qofka gabadha Soomaaliga haddii cadaan guursado cadaan bay dhalisay wiilka Soomaaliga haddii qof cadaan ama guursado adoo cidii uu guursado horta noqonaya arrintaas waa phenomenon jira laakiin hadda ma garanayo ma sii macnayn karo waxaas ma taqaanaa anatomically laakiin shacab fiican weeye laakiin haddana waxa la yiraahdaa setuju sta in Roma kuma Romani hadda Roma joog sida Romaniga u dhaqan hadda saameyn bini'aadamku waa ku sameynaya qofku dalka uu tago saameyn bay ku sameynaysaa waxa carabtu oran jiray man jalasa ma'a qawmin 40 yawman abada ma abado ninka 40 maalmood qolal la fariisto wax caabudaan buu caabudaa taasuna waa wax caadi bini'aadamka la mid ah wax gooni iyaga ku amaaha exceptional ku amaaha waa gartay wasiir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabayn lahayd wareysigaaga waxaan oran lahaa laba qolobaan yaani arrin aan u sheegi lahaa dadka waaweyn oo aniga de'deyda ah decade-kan soo socdo hadda bilowday waxaan filayaa inaynan dhaafeen ama qof ka dhaafa wax yar bay noqonayaan marka shacabka Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah oo inay waqti badan noolaadaan xaq u leh mustaqbalkooda hal la waardiyeeyo nabad ha loogu soo dabaalo ha la isu keeno tanaasul ha la sameeyo yaani farataagtaaga ha la iska daayo shacabkaas ma aragtaa way istaahilaan inay noolaadaan sharaf u noolaadaan taasaan waxa oran la dadka waaweyn dadka dhalinyarada ah mustaqbalka idinka leh adduunku sidoo u nool yahay ina u noolaataan oo goortaad aad higsataan oo himilo aad yeelataan oo aad isu tagtaan oo isku xirantaan dadku markay isku xirmaan ayay wax qaban karaan Soomaalidu waxay oran jiray 10 tuuga oo tabaro iyo tala wadaageen iyo niman tulweyn lahayn kala tigaatron 10 ka tuugta waa wax kasta ka adag ama l'union fa la force yaani waxa weeye isku xiriirka hadda goorta dadku ay isku wada xirmaan waxa weeye waxbay qaban karaan dhowr goor aan ku celiyay waxa la yiraahdaa haddaan laga wahsan hawlba kii loo wadacayo oo shawqiis kama dhamaadeen nacfigu weelka nootalan nimca laga wabxan ciid jaan lagama waayeen marka dalkeenu dal fiican weeye dadka dhalinyarada mustaqbalka idinka leh sida adduunka dhalinyarada u jaan qaada waxbarashadiina siyaadiya barnaamijka siyaadiya isu taga is wanaajiya wax noocaas gacanaha is qabsada markaas
dalkiina nabad baa ka helaysaan horumar buuna samaynayaa waana dal fiican dalkaasu waxaa la ii sheegay waqtigii ay Europeanku ay research samayn jireen 80maadkii 200 oo milyan oo European life style ah baa ku noolaan kara Soomaaliya hadii la develop gareeyo waana buuxana wax kasta waa yeelin marka dahabkaas dul saarantihiin ha ku gaajoonina hadee samaysta xorriyad ninka gayaha guursado qurbahan ka soo laabta laasuna di wixii kari kara waa tahay daawadayaal waraysigeennii iyo barnaamijkeennii khaaska ahaa ee idinka imaanaya xarunta telefishinka Somali Channel uu ku leeyahay magaalada Nairobi intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa waxa barnaamijkeennii la socodsiinayay anigoo ah Caluula Nuur Caluula barnaamijka dan idin xasuusiyo waxaanu ku wareysanaynay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo dhaqanka mudane Cabdi Khaliif Sheekh Xasan Ajaay aad iyo aad u mahadsantahay wasiir